diyaargarowga dhinacyadu ugu jiraan dagaal isku maquuniya ayaa ka socda Galmudug iyadoo wali aysan meesha ka bixin dadaalada iyo waanwaanta laga dhaxwado madaxweyne qorqor iyo hoggaanka Ahlusunna. Wararkii ugu danbeeyay waxay sheegayaan in xildhibaanada ku matala caasimadda baarlamaanka Galmudug oo hadda ku sugan degmada Matabaan ay wadaan isku daygoodii ugu danbeeyay ee xalka xiisada taagan. xildhibaanadan oo gaaraya 5 mudane oo dhanka Ahlusunna ka soo galay markii hore baarlamaanka Galmudug ayaa horay dhuusamareeb kula kulmay Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor waxaana ay u soo jeediyeen in xalka uusan ku jirin xabad iyo in la dagaalamo. madaxweyne Qorqor ayaa u sheegay xildhibaanada shanta in ay jawaab ka keenaan Sheekh Shaakir oo ku sugan magaalada Gurceel. wali ma aysan kulmin Sheekh Maxamed Shaakir iyo shanta xildhibaan waxaana la filayaa in maanta ay wada hadlaan iyaga oo kadib fariinta hogaamiyaha Ahlusunna ku soo celin doona Axmed Qorqor. dhinaca kale ciidamadii ugu badnaa ayaa 24 saac la soo dhaafay laga dejiyay caasimadda Galmudug waxaana saraakiishu ay sheegayaan in shalay ilaa iyo maanta laga dejiyay Galmudug ku dhawaad 300 askari. xogaha aanu ka helayno ilaaha amniga Galmudug ayaa sheegaya in ciidamada Galmudug dhowr jiha loo kala qaybiyay si ay ugu diyaar garoobaan dagaal saf ballaaran ah. waxaa la soo sheegayaa in ciidamo hayb ahaan ka soo jeeda Gurceel loo diray deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin Balihowd iyo Oodaale si ay uga hortagaan gurmad ay halkaasi ka helaan wadaadada Ahlusunna. ilaa iyo hadda 8 cabdibile oo ay la socdaan ciidamo laga dhowray askari mar xitaa ka soo garab dagaalamay ciidamada Ahlusunna ayaa wararku sheegayaan in halka ay tageen gawaarida dagaalka ay ciidamada la socdaan waxa la xaqiijiyay in ay leeyihiin xildhibaan Mahad Maxamed Salaad iyo ganacsada Cabdinaasir Xaashi Garuun oo labaduba ka mid ahaa dadka sida weyn isku hubeynayay bilihii la soo dhaafay. xogahan helayna ayaa sheegaya in laga yaabo in ciidamada Galmudug ay fariisimo cusub ka sameystaan saacadaha soo aadan tuulooyin u dhaxeeya Gurceel iyo dhuusamareeb inkastoo wali aan tallaabada lagu dhawaaqin. saraakiisha horboodaysa dagaalka ee dhanka maamulka Galmudug ayaa diyaariyay qorshe 3 geesood ah oo dagaalka Gurceel ka hor lagu dhaqaaqayo. waxaa qorshayaashaas ugu horeeya in deegaanka Hursho la weeraro si halkaas oo ciidamo iyo gaadiid dagaal oo fara badan uu ku haysto Saadiq Sheekh Yuusuf la wiiqo cududooda. midda labaad ayaa lagu sheegay inay tahay in la jaro dhulka waqooyiga ka xiga magaalada Gurceel halkaas oo la filan karo in ciidamada Ahlusunna ay ka helayaan taageero badan oo dhanka ciidanka ah. dhanka bariga magaalada Gurceel ayaa iyadana qorshe kale loo diyaariyay. Sheekh Maxamed Shaakir oo hadda ninka hogaaminaya dhaqdhaqaaqyada Ahlusunna ka wada Galmudug ayaa la sheegayaa inuu xiriir la sameeyay saraakiisha horkacaysa dagaalka ee dhanka Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir ayaa u sheegay qaar ka mid ah saraakiisha uu la xiriiray in culimadu aysan dhib rabin isla markaana ay ogol yihiin in nabadda iyo wadajirka ummadda laga wada shaqeeyo. magaalada Gurceel ayaa degan waxaana dhanka Ahlusunna ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iyaga oo ciidamo qoris aan la qiyaasi karin ka sameeyay tuulooyin badan oo hoos yimaada magaalada Gurceel. baaqyada nabadda ee la dirayo ayaa sii siyaadaya waxaana wali dhinacyadu ay u muuqdaan inay yihiin kuwa xalka dagaalka raadinaya.